فرحد وين بين إيتاين كسو قيب قالوا علم بارستان النتيجة دي كسو بحد علم بارستا وحنو مالين هو علم بارست يجوه الرئيسية سوماليا جذهيرة lagu baaray shay la isticmaalo oo tayada ku saabsan waana ku amaanan yihiin Dr. Axmed iyo tiimkiisu iyo laabka runaantii horumarka inaynu maanta gaadhno farxad weyn bay noo tahay waxaanu ka sii jeclaan lahayn agab kasta oo la isticmaalo in cilmi baaris lagu sameeyo si loo eego agabkani ma buuxiyaa shuruudihii heertayeed ama halbeeg ee caalami iyo ma buuxiyo cilmi baaristu dabcan waxaa loo sameeyaa in hore loogu mariyo shayga cilmi baaris meel la iska dhigto oo qurux badan oo la publish gareeyaa ma jirto cilmi baaris kasta waxay u baahan tahay in ay isu bedesho siyaasad cad ama waxa la yiraahdo evidence based policy making waxa weeye cadayntii baynu maanta haynaa inagu filan cadayntaasi waa in siyaasad cad laga yeesho siyaasadda cidda ka yeelanaysaana waxaa jira stakeholders wasaaradda caafimaadka wasaaradda horumarinta biyaha ee laabka iyo wasaaradda ganacsiga iyo cid kasta oo muxuu ahaay wakaaladaha biyaha wax soo saara cid kasta in siyaasad cad laga soo saaro cilmi baarista sidii loogu dhaqmi lahaa cilmi baarista maanta naloo soo bandhigay marka la soo duuduubo waxa lagu sameeyay heer caalami waanan ku qanacsannahay waanan ku waafaqsannahay recommendations ka soo baxay sida la sheegay maarayuu sheegay recommendationskii siyaabo khaldan baa loo turjumay عدة شرعي بينكو أساسنا هاي لكن عدة شرعي أولى أجب أما ألاب ذلك أما لو سمي أما صوج الشيء إن أي تيذا ده وحكتر هذا أو officially عديمها أو شكتنا وهيدا لو رست تيذا وكو أساسا حركة number 68 2014 مرة ورتا وركا بحياة ما محوها ورين تاسي سخلدن بيو بحذي واحد شراء ألابا بدنا نستعمل له oo u baahan inaynu dadaal badan ka gallo ka wada shaqeyno si kor loogu soo qaado tayadooda ama waxyaabihii loogu talagalay ee nutritionka ah ee qofku ka rabay ay u waafaqaan waxyaabaha loogu talagalay shayga biyahanina kuwaas uma ka mid yihiin marxalado badan bay soo muxuu ahaa mareen sida la horeba loo sheegay warshadaha biyaha soo saara marxalado badan iyo isbedel badan baa jira annaguna aan u soo saarnay guidancesyada halbeegyada standardada wax maalin qoran lagu gaari karayo ma waa system dhan oo isku xidhan waayo hubinta tayadu waa infrastructure dhan oo dhameystiran mas'uuliyadana ay xukuumaddu leedahay waajibaadka ama buuxintana shuruudahaasi ay leeyihiin ciddii ka ganacsata shay kasta ama ha warshadayso ama dalka ku soo dejiso marka waxaanu idinku bushaareynaa warbixintan cilmi baaristan inay horta mid aad iyo aad muhiim ah u tahay inay tahay mid stakeholderska miiskan wada fadhiyo oo dhan ee ay khusayso aanu ku dhaqmayno haddii ilaahay ka dhigo si warbixinta ka dambaysa aynu u wada fadhiisano dhammaanteen halkan innaga oo arkayna in biyihii ama ha noqdaan kuwa la soo caagadeeyo ama ha noqdaan kuwa kale qasabadaha la cabayo ay waafaqsan yihiin muxuu ahaa heertayeedkii ama standardkii inoo yaallay kii Somaliland oo ah mid muxuu ahaa ku salaysan ka caalamiga marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana ku bogaadinaynaa tiimka iyo laabkan soo saartay warbixinta iyo researchka laababka kale iyo institutionada kale ama ha noqdaan institutionada waxbarashada ee jaamacadaha waxaanu anagu diyaar u nahay ka hay'ad ahaan inaanu hor ugu marino in cilmi baaris laga sameeyo shay kasta oo bini'aadamka saameyn ku yeelanayo waayo annaga wax weyn bay shaqadayada taraysaa oo meel aanu muxuu ahaa ka raad raacno ayaanu maanta haysanaa waxaanu haysanaa halbeegyadii ama standardadii waxa lagu hagaajin lahaa qof waliba inta aanan qiimeynin oo marka hore isagu isqiimeyn lahaa haday warshad tahay iyo hadduu yahay ganacsade kale aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah